السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرحد iyo wanaag baan idin rajaynayaa walaha sharafta badan meel kasto adduunka aad ka joogtaan. Haweenka sida joogtada u hela inay ku riyoodaan ama marka ay hurdaan xilliga habeenkii in ay biyo baxaan oo hurdada ay biyo kaga yimaadaan mayay ku qanci karaan oo qanaaciyadii ninka booskiisii bay u galayaan oo qooqii iyo hamadii iyo dareenkii waa uu kaga yaraanayaa. qolyaha researchka sameeyay caafimaadka ee ku saabsan ishiigan aynu ka hadlayno ee baxaskan sameeyay waxa ay tilmaamayaan in aanay ka dareemaynin dhinaca rabitaanka iyo baahidii ninka iyo qooqii inaanu wax siyaada aanay ka darayn laakiin inay ka yaraynayso faktarada kaga yimaada ama qodobada kaga iman kara dhinaca psychology-ga ee ay ka mid yihiin haddii haweeneyda la guursan waayo ama haddii haweeneyda loo galmoon waayo ama haddii haweeneyda waqti badan lala qaadan waayo oo nin markaas ay guur ka heli weydo iyo galmo ay heli weydo waxyaabaha ku dhaca inay ka yaraan karaan dhinaca maskaxda oo ay ka mid yihiin intensive stresska ama depressionka iyo stresska soo laalaabanaya inay markaa ay ka yaraadaan ayaa la arkaa. waxa kale oo ay tilmaamayaan qoladan ku sameynaysa researchka arrintan inay sida oo kale ay daily life-kooda maalinlaha ay si fiican u dhacsanayaan without anxiety, without depression, without distress inay iyada oo markaa maalintaasi aanay mood qaldan aan ku jirin oo xaalad adag aan ku jirin oo aan isku buuqsanayn ay maalintaa shaqadoodii si fiican ay u gudanayaan. maalinta habeenka ay helaan inay riyada markaas ay ku biyo baxaan oo riyada markaa biyuhu ay kaga yimaadaan. waxa kale ay tilmaamayaan qodobka kale ee ah inay haweenkani ay jirkoodu uu caafimaad ahaan u isbedelayo ama markaas haweeneydu in ay isku dayayso inay si fiican ama teed fiican ay hesho oo cuntadeedu ay wanaagsanaato oo markaa nafaqadii jirka ay aad u fiicnaato maadaama ama teedkeedu wanaagsanaanayo cuntana ay qaadanayso cuntadaana ay ka dhashanayso markaa inay ka hesho nutrientskii iyo nutritionkii jirku u baahnaa. qodobadaas ayay xusayaan. intaasaynu ku soo afmeeraynaa muuqaalka. fadlan haddii uu ku soo gaadho la sii wadaag bulshadeena kale. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.